mid hodan ah oo leh kheyraad kala duwan oo Rabbi ku manaystay una baahan in si weyn looga faa'iideysto. kheyraadka dalkeena waxaa ka mid ah kheyraadka badda oo isugu jira kalluun, macdan iyo shidaal. kheyraadka dalkeena waxaa ka mid ah xoolaha nool oo isugu jira geel, lo, ari iyo noocyada kala duwan ee dalagga. kheyraadka dalkeena waxaa ka mid ah deegaan dalxiiseedkiisa qurxoon iyo cimiladiisa diiran. waa la mahadiye waxa eeban ugu gaar yeelay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer Afrika iyo kuwa adduunka oo dhan. waa doqonnimo iyo liidasho waxaan nahay kuwa ka baahan kheyraadka Rabbi oo dul dhigay dhulkooda. fadlan muwaadin iyo mas'uul iyo ragale oo gacan ka sii dadka u taagan wax soo saarka dalka. kheyraadka dalkeena waxaa ka mid ah dardaweedkiisa dabiiciga ah iyo geedmareedkiisa macaan. annaga oo heysano waxaas oo kheyraad ah maxaana baday faqriga iyo gaajada Soomaaliyeed. ma ku baraarugsan tahay in cuntada dalkeenu ay ka waxtar iyo caafimaad badan tahay midda dibadda la inooga keeno? dalkan ballaaran oo kheyraad ka buuxo gar ma aha inaan isku dilno ee waa inaan la nimaano xigmaddii aan uga faa'iidaysan lahayn kheyraadkeena si aan u tiigsanno adeega horumaray.